ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta lidka diyaaradaha waxa ay ku weerareen diyaarad military oo ku soo xadgudubtay hawada dalkeena Soomaaliya ilaa iyo 3 gantaal ayaa lagu tuuray diyaaradda military taa oo la sheegay inay sawiranaysay xarumaha ciidanka xoogga dalkeena ay kaga sugan yihiin gobolka Gado iyo xadbeenaadka Kenya diyaaradda ay weerareen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa la sheegay in ay si dirqi ah ku baxsatay kadibna ay ku laabatay dalka Kenya oo markii hore ay ka soo kacday محمد أحمد سمتر أو كم ده دتك ديجان كمجال بلد حاوي قبل كجدو أو قد كتلفون كأن كل حريري أيام مركو روح كويدية سيدا أي واحد عن يهب حال كسيدا ويهي ساكنوا وحلقوها بالاستديارات محنقول على قوة وحصوروها محنقول أول صدحات كتيرتو وعيدك كل شيء ستاجن عيدك كان قنطارة يكون في زين دبنا ومصون ونقول هان محنقول على عيدك وكتير إسلام بيتنت برتنت عقدت كما بحاله صحوي وكاسو أنتاس وصحوية وين عرفت وكاسو أي عيدك إسكوه فلي ودامر بيكاهي وحيكسو بشدك جرباري حقيقة هو صورين هاي لكن لو قصريه دي هل عليك صاحب على القنصار كالوجود ما سد حريم با لما حريم هرية ساكا يا كوه انت كلا اجاس قدون دوهي محانكو على اي تحاجيو قدون دوهيو meesha la yiraahdo alwaaq inta ka dhaxaysa waxaan ku raada antooyinka duqeynaysa xoolaha kuuleynaysa waxa keenay baa isleeyahay rugaha ciidamada ay fadhiyaan bay baasha sawiraysa inay sawirata rabtay hadii hawada saddexaad maxaa taagay diyaaradan meel kale u socdo ciidanka dushiisa maxaan ku raada maraysa markii gasaanka lagu ridayo maxaan ku raada xuduudeeda ku carartay maxaa kale doonaysa diyaaradaha Kenya gaar ahaan kuwa militariga ayaa la sheegay in marar badan ay si qaldan u isticmaaleen hawada dalkeena iyaga oo habeenkii inta badan soo guureen jiray balse hadda ay u agbadasheen in maalin cad ay hawada dalkeena ku soo xadgudbaan taa oo u muuqata in Kenya ay wado daadaansi dagaal Gureysta, gulla gureyo, gureysta. Gureysta, gulla gureyo, gureysta. ku xirnow IBS Bank goob kasta iyo goor kasta adigoo isticmaalaya IBS Mobile Banking degso application-ka oo isticmaal adeega IBS Mobile Banking